السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلنتي وعنا ونكسن خيارتها وذا نجد عوتاي كسر دوادا برامج كدلني يرى تلفزيون كقرن كسومالي لأن وتضبط كان يدين كجاي من أيام مقالة برعة حرونتا قبل كتقدر برامج كوحنا ورئيس كلية لنا إن قدوميها قرب كدلني يرى حزب كتلاده هي كلمية أبوكر عرب إليه وأنا كورئيسان دونه دلني يرى دور كاي كقادم دونتو سياسة دا يسبدل كودن كبا عليكم السلام ورحمة الله. عاد بن نوردين وحسنت هاي عاد بنو فرحسنا أنا برامج كذا قالوا عاد بنوهم بلين يا بعض التلفزيون بعدين قناة كودهان وتلفزيون صحيح نوردين واتي إن كصدقنا اللي يراد هاي حتى نوع على برامج كأنه هردع وقدر إنه تاريخ نورلات كذا. نوردين عاد بن حسنت هاي مقالة هو بكر عرب إليه أنا مقالة برا رنتي كبر بعاري دوكسي بوسة ده دوكسي جيس كافريقيا براكو يبان كبحي دوكسي جيس رنيلة سكندري سكول بان كبحي جامعة برو أيوة كذي باجلور ديجري بيزنس أدمنستريشن كارهان تخصص مانجمنت وأصله كلا دبلوم أوسط كقاعدة مع الخرطوم الدولة السودان كويا لا ويسوون تربية أمريكيشن ومعلن ما إنك واحد سيلو كادياريا ديجري كانوا شريعة runtii intaas buraan joogay waxaan intii aan joogay maamulka dugsi burca ku yaal markii aan dugsiga sare ka baxay jaacada waliba maamulka dugsi sare oo dugsi hoose dhexe oo bariga Afrika la yiraahdo waxaan sidoo kale haddana ku biiray shirkadda isgaarsiinta Telesom aan tartan imtixaantan u galay shaqaaleeda ka mid noqday waxaan gudoomiye ka soo ahaa naadiga akhriska iyo qoraalka halkaraan baan gudoomiye muddo sanada kamid ah hogaamadii soo maray oo sanadkiiba hal gudoomiye la doortaa naadigana mar baan gudoomiye ka ahaa urur dhalinyaro dal hay'adda isaga laftiisa mar gudoomiye ka ahaa madasha hooyiga ardayda burcaan iyadana mar gudoomiye ka ahaa qolyahaas oo dhan arrimaha dhalinyarada ka shaqeeya runtii qayb baan kala soo qaatay halkaraan iminkaan ka tirsanahay إمكانه هو تلسون كشقاية أي شقدان حزبي ومسبيح عبدي سو مجاعبي مركان قيمة بان وقاينا شقدان كشقاية سكول كيني أنا هنجري ماموران المامور كي هذا وهن لكيني مكهوش شق حزبي جي شقريس أيانا هذا بدنات بدمات إن لقوا مجاعبة قدوميها إن قرب كده الإرادة حزبي كلمية ماذا كهول قلاي مسين مجاعبيست مطلوب والله رنتي موسى شخصيا واحد هنجري مضلها على الإرادة مركب وكل ما تتكلم لا كل ما لكن ميسج رسمي أنا جيتي ما تشيرين لكن مركي ليسو عرفت أساسا يكتب من كذب الله يسوع مجاعبي ديواني كم كوش قيني قيمين تاني واتهاي ما دامت هاي قدوميه قرب كده الإرادة حزبية وكلمية الإرادة مركز وشرح يسيد كلمية وحاول كجدوه هي حزبية ذا كلا ترتن كسياسة كده حيو محاضر الله وصح سؤال ذلك جاء محاورته موجينيا إن ليس هو مجاعبة قرب كان اللي رنتي أنا قيمة وين بيسمعني aad bay runtii dhalinyarada iigu soo dhaweysay waxaan dareemay position muhiim ah oo dadkeena muhiim u arkaan xisbiga talada dalka iyo kulmiye oo runtii ku ah xisbiga horumar iyo waxqabad iyo dadaal badan ku suntan inaan xafiis ka mid ah xafiisyada ugu muhiimsan ee gobol uu ku leeyahay mas'uul ka noqdo aad barto marka hore ugu farxsanay taa marka laga dhigo kulmiye wuxuu ka duwaya xisaabta qaran kulmiye wax badan buu ka duwayahay marka ugu weyn ka duwaya waa xisbi mucaarad soo noqday intuu mucaarad noqday baa hadana dalka ka taliyay labada xisbi kale oo xisaabta qaranka la tartamayso labada xaya ma jirto mucaaradnimo soo maray waxaanu yimtirada dalka muddo runtii aad u badan buu imika mucaarad arrimaha dhalinyarada runtii wax badan buu waxaan u kala qaadayaa dhalinyarada inaan ka hadla laba qaybood wixii hore u tagay dhalinyarada muxuu kulmiyo qabtay mustaqbalka muxuu qaban doonaa markaynu maadigeen iyo wixii tagay ogaana waxaan ogaan karnaa mustaqbalka waxyaabaha ee laga filan karo kulmiye dhalinyarada wuxuu qabtay waxyaabo fara badan waxyaabaha uu qabtay waxa kamid ah shaqo abuur aad u fara badan oo dalka aad u saameeyay ayaa runtii uu ka qabtay waxa khudbadii madaxweynuhu ka jeedinayay
qalinjabintii maxadka shaqaalaha maalintii ku jirtay shaqaalaha maalintii dawladda cusub ee kulmiye timi shaqaalaha dalku wuxuu ahaa 6969 muddadan xukuumadda Axmed Siilaan iyo xisbiga kulmiye ee tirada dalka ayana waxa laga dhigay 9346 qof oo shaqaalaha qaranka halka haddaynu kala saarno 6969 shaqaalaha ahay 19 sano dawladda Soomaaliland soo jirtay la shaqaaleysiinay marka laga xukuumadda Soomaaliland oo muddo 6 sano tirada dalka haysay kulmiyana waxay shaqada shaqaaluhu ay runtii gaadhay 9340 marka hadda tirada inta leeg ay xagga shaqaalahana cidda ugu badan ka faa'iideysanaysa waa dhalinyaro waxaad ogeydo dhalinyarada waxyaabaha kale loo qabtay dhalinyaradu waxyaabaha aadka ugu ammaanayeen waxa kamid ah xukuumadii hore aanay hortaagnaan jireen talada dalka iyo siyaasadda qaranka inay ka qayb galaan runtii wax badan bay arrinkaas kulmiye ka suurtageliyay doorashooyinkii deegaankee dhawaa waxa caqabad ku ahaa dhalinyarada da'da arrinka ah oo xagga da'da oo kale dhalinyaradu kaga qayb gali karaan siyaasadda kulmiye iyo xukuumaddu waxay ka shaqeeyeen xeer number 20 in laga qaado caqabada dhalinyarada oo da'da hoos loo soo dhigo 25 la keeno si dhalinyaradu uga faa'iido halka waxa ka soo baxay dhalinyaro aad u tiro badan inay golayaasha deegaanka dalka ku soo baxaan waxyaabaha uu qabtay waxa kamid ah madaxweynuhu wuxuu ama xukuumadda kulmiye waxay keentay wasiirro aad u dhalinyaro fara badan waxay keentay agaasimayaal fara badan waxay keentay maareeyaal fara badan oo digreeta madaxweyne ku magacaaban waxay keentay xafiisyada hore dawladda fara badan shaqaale badan oo dhalinyaro ah ay dawladda wax ka noqdaan waxa kamid waxyaabaha dhalinyarada loo qabtay hore kulmiye iyo xukuumaddiisu ay u qabteen in sportska iyo ciyaaraha iyo dhalinyaradu waxyaabaha aad ka u daneynayaan aad loo dhiirigeliyo waxaad ogeyd wareegyadii waaweynaa dalka madaxweyne Axmed Siilaan iyo madaxii dalka ugu sareeyay mid walba ka soo qayb galay marka la xirayo waxyaabaha aan gaarka u sii xasuustay aan aad u tilmaami lahaa waxa kamid ah runtii dhaqaalihii dalka kulmiye kordhiyay dhaqaalaha kordhaana wuxuu dan u yahay dhalinyarada dalka in dhaqaalaha miisaaniyadda markii dawladdan ay timi waxay ahayd waxay noqon jirtay 740 milyan ilaa 50 milyan imikana inta laga dhigay 180 milyan ama 200 milyan ku dhow bay maraysaa miisaaniyadda imika hadii xisbiga kulmiye mar kale ku soo noqdo hoggaanka qarankeena runtii wax badan baa ka go'an dhalinyarada loo qabto wixii hore looga qabtay kulmiye ahayd talada qaranka in laga qayb geliyo dhalinyarada in laga qayb geliyo shaqaabuurka in la kordhiyo in ciyaaraha iyo sportska iyo arrimaha dhalinyarada aad qodan la dhiirigeliyo xagga aqoonta iyo waxbarashada iyo caqligooda iyo aqoontooda iyo kartidooda dhalinyarada runtii kor loo qaado wax badan bay xisbiga ka go'an marka arrimahaas oo badan ayuu xisbigu u diyaariyay dhalinyarada abukar marka togdheer la joogo taariikhta gobolka togdheer wuxuu noqonayaa gobolada ugu taariikhta badan dhalinyarada ka taariikhsa hadaanu lambar 1 ba gelin maxaad isleedahay taariikhtaasi way sababtay sideeba looga hal loogu heli karaa taariikhka adigoo xisbiga kulmiye u hadlay afkii dhalinyaradiisa ku hadlay iyo horta taariikhtaas runtii way badan tahay dalkana way ku badnayd mana aha xilligan dawladda kulmiye joogtay bay badatay Axmed Siilaan iyo isagoo musharaxa iyo xisbiga kulmiye waxay ku olol jireen taariikhtan wax ka qabanana taariikhtu way badnayd runtii waxyaabaha keenayaan oo aan aaminsan waxa xilliga hore iyo in badan taagan waxa kamid ah shaqo abuurka oo runtii shaqaaleynta oo yar runtii dalkeeni waa dal curdina ah dhaqaalihiisu ma badna fursadda dawladda iyo xukuumaddu u leedahay in dad badan runtii shaqo geliyo way yartay xukuumaddu siyaasado badan bay u diyaarso shaqo dhalinyarada shaqo loogu abuurayo haddana waxa kala badan awoodaynu lahayn iyo baahidii aynu qabnay marka horta arrimahaas shaqo abuur waxaan u ordaya waa runtii shaqo iyo qofku inuu dakhli helo iyo noloshiisa inuu ku filaado arrimahaas sabab waxa laga bixi karaa runtii in dhalinyaradii aqoontoodii la dhiso oo runtii waxbarashadii sida u baran lahaayeen ay bilaash ku helaan waxaan aaminsan oo kale in laga bixi karo in shaqo abuur loogu dadaalo dhalinyaradii oo la shaqaaleysiiyo oo la abuuro goobo shaqo lagu shaqaaleysiiyo xisbiga runtii in wax soo saar badan dalka laga soo saaro oo waxaan aynu isticmaalnay in badan oo kamid dalka laga soo saaro kadibna shaqo dhalinyarada ka hesho ayaa runtii qorshihiisa marka runtii waxaan aaminsanahay kulmiye in wax badan ka qabo horena uu uga qabtay dhalinyarada iyo arrimaha taariibka iminkana wax badan in la yareeyo dhinaca ciyaaraha togdheer baan dib ugu soo noqonaynaa mar labaad ciyaaraha gobolka togdheer taariikh weyn buu ku leeyahay haddii waqtigii hore Soomaaliweyn la ahaa ay tahay iyo intii Soomaaliland ay xorriyadeeda dib loo soo noqotay hadii la tahay ciyaaraha gobolada marka la eego muddooyinkii ugu dambeeyay hoos u dhac weyn baa ka muuqday oo meel hore ku hadhayeen wareegyadii koobaad iyo labaad bay ku hadhayeen gobolka togdheer hoos u dhac maxaa sababay leedahay sidee baa looga soo kaban karaa runtii waa runtii bro taariikh fac weyn bay ku leedahay xagga ciyaaraha iyo arrimaha runtii taariikh weyn bay ku leedahay hatta waxa lagu
lagu aad iyo lagu leeyahay burco waxa la yiraahdaa kubadda ku dhaafto waxa la yiraahdaa waxay tiraahdaa ninku iyo ku dhaafay burco taariikhda weyn iyo facaawi runtii ku lahayd ciyaaraha in ay bariyada meelaha fiinalka iyo xilliyada bayma weydo runtii way jirtay arrimaha waxaan oran lahaa waxaan laga shaqeeyay runtii culays badan la saaray qolkii iyo gobolka ciyaartooygiisii iyo in la dhiso iyo isku xidhnaantoodii iyo midnimadoodii iyo wada socodkoodii iyo magacooda in wada shaqeeyo arrimahaas runtii yar hoos u dhacay ka jireen arrimaha waxaan filayaa koobkii ciyaarihii hargeysa ka dhacayo kala runtii khilaafaad baa soo dhex galay arrimihii waa la xaliyey iminka waxaan rajaynayaa burco inay diyaar markan inay kaalmaha sare runtii soo gasho caqabadaha iyo isfahan la'aanta iyo dhalinyarada kala daadsan iyagoon tiim marka hore xul ah oo ku ciyaaraani jirin arrimahaas sabab ah in waxaan filayaa in waxaas waa la xaliyey hadafkooda leeyahay sumcadda burco iyo tarka burco iyo gobolka horumarkiisu ay ka wada dhaxayso ayaa runtii kaa filaya in la diyaariyey xilalka dambe iyo tartamada dambe waxaan filaynaa inay meel fiican ayna doonaan isla ciyaaraha garoomadii iminka waxaa jira garoomo yar casri oo roog cagaaran la dhigayo kuwii caalamka soo eegay laakiin kuwaasi waa meelo dad leeyahay oo gaar ah oo lacag laga qaato waxa dhalinyaradu u baahan tahay meelo public oo dawladdu ay xukunto oo ay si free ugu ciyaaraan garoonka Hargeysa oo kale waad arkayso si rooga loogu sameeyay togdheer xisbiga kulmiyada tiin maxay idinka qorshaysaa dowladda dad mahadsantahay horta garoomada isku runtii aad baana marka xisbi ahaan marka tagayna in badan marta garoomada ciidooda la leenahay maraan qalab sports gaming maraan wareegiyo ka furayno marka garoomada private kiino jiraan kii garoonkii weynaa arrinta stadium waxa qorshaha ku jira oo miisaaniyad dowladda ku jirta oo san war ku hay marka qorshihi socda isagana uu ka mid yahay garoomo badan dalka oo loogu talagalay in la gaarsiiyo isagana loo gargaar aad u rajeynayna kulmiye iyo dowladda way ka go'an tahay ciyaaraha iyo walahaan la dhiirigeliyo runtii priority iyo muhiimada badan oo siiyay marka waa qorshihi ku jira abukor baahiyo badan baa jiro dhalinyaradu qabto guud ahaan dhalinyarada Soomaaliyeed adiguna nin dhalinyaro baa tahay dhalinyarada ku dhex jirta marka adigu iska soo qaadid baahiyaha dhalinyarada sidee loo kala horeysin karaa wax ka qabashada niyo noordiina way badan yihiin baahiyihina waxaan u kala qaadaynaa wax muhiim oo asaasiyaad iyo wax dheeraad waxyaabaha muhiimka ah asaasiga waxa kamid ah dhalinyaradu waxay u baahan tahay maalin walba waxaan daawanayna intaas oo dhalinyaro qalin jabinaysa runtii dadka qalin jabinaya maalin soo qalin jabiye ee shahaadada soo qaatay ee soo takharrujay ee muddo dhan lagu soo tamayo dhowr iyo 10 sano in loo dawladeena iyo xukuumaddu qorshe ah in ay helaan meeshii ay runtii noloshooda ku kafayn lahaayeen inuu ka baxo gacantii waalidkii ee uu ku tiirsanaa waa baahiyaha ugu koobaad inay shaqo helaan waxa kamid ah dhalinyarada inta u diyaar garooday hoggaanka iyo siyaasadda dalka inay ka qayb galaan laga qayb geliyo oo aan lagu reebin xagga daba dhalinyarada iyo waxaan ma fahmaysid ee la aaminsiyo lagu tababaro inay hogaamiyaashii biri yihiin talada maanta ay ka qayb galaan arrimahaas waxaan malay waxyaabaha ay muhiimka u ah ciyaarahaas oo kale runtii in la dhiirigeliyo waa baahiyo badan oo ay runtii dhalinyaradu qabto dhinaca shaqo abuurka iyo shaqo helista dhalinyarada waatan waad sheegto waxa dhalinyaro fara badan baa jaamacadii ka soo baxaya jaamacadaha laftooda wax la leeyahay waxbarashada ay bixinayeen tayadoodii oo liidata iyo waxaan ay bixinayaan oo aan khusayn inta badan meelihii shaqada laga heli lahaa wadanka sidii shaqada loo geli lahaa ayaa jirta oo tusaale dhalinyaradii marka ay jaamacadii ugu badan yihiin business administration wadankeena dhaqaale ahaan xoolaha nool ku tiirsan yahay ama baddaaba dhaqaale laga sameyn kari lahaa meelaha jaamacadu xooga ma saaraan adigu aragtida maxaad ka leedahay iyo horta dee waa dhici karta hore inay sidaa ahaan jirtay laakiin imika wadigan ogo waxa la sameeyay komishanka tacliinta sare oo runtii maamuladii jaamacadu qayb ka yihiin oo rag badan aqoon-yahan oo dalka mid yahay madaxweynuhu xubno halka u magacaabay runtii dadaal badan baa la geliyay agaasimo gaar ah waxbarashada iyo tacliinta sare qaabilsan baa la sameeyay arrimahaas runtii waxaan filaynaa tayadii waxbarashada oga jaamacadaha qiimeyn baa lagu sameeyay jaamacado badan dalka shaqo jiray waa la xiray kuwan imika jirana kulliyadaha jira in la tayeeyo muqarraraadkan iyo curriculumka jaamacadu bixinayaan in tayo loo yeelo runtii komishankaas aad uga shaqeeyay wax badan oo fiican waa laga qabtay waxaan rajaynayaa baahidaynu qabno mar walba kulliyadaha jaamacadu bixinayaan lagu saleyn doono abakor tan iyo intii lagu magacaabay gudoomiyaha garabka dhalinyarada kulmiye ee gobolka Togdheer maxaad qabatay isku daydan oo qabatay ku qabsan runtii waxa yaabo badan baa runtii noo qabsoomay iyadoo iskaba muddo koobado dhowr bilood ahayd waxyaabaha noo qabsoomay waxa kamid ah xafiiskan garabka dhalinyarada
maaha anigoo kale de waa garab dhan oo maamulo oo dhalinyarada gobolka Togdheer oo dhan maamusha garabkaas baanu dhisnay oo waxyaabo noogu horeeyay kamida waxa kamid wax qabadayntii aanu qabanay dhalinyarada u qabanay waxaanu tagnay garoonkan xaafada Balaasa garoonka yelo garoomada roogaga waxaanu 8 kooxood ku guddoonsiinay qalab sports waxaanu kala guddoonsiinay koob waxaanu kala dhignay bilado ciyaartooyada ugu fiicnaa si aan ciyaaraha u dhiirigelino sidoo kale garoon culus stadium yada xaafada Maxamed Cali ku yaala isagana inta in leeg 8 kooxood qalabkii اللهم صل على محمد كوب بلادهي وحاسبان runtii guddoonsiinay qalabkaas oo dhan runtii naga soo gaaray gudoomiyaha xisbiga kulmiye ahna musharax madaxweynaha xisbiga mudane Musabbix Abdi runtii uu soo daaqay dhalinyarada gobolka kuwa kalena waan haynaa runtii waan qaybineynaa dhalinyarada runtii xiriir fiican baan la leenahay xaflado iyo kulamo soo dhaweyn oo dhalinyaro badan oo xisbiga barnaamijkiisa iyo qorshihiisa ku qanacsan iyo wax qabad ku qabtay runtii ayaan xisbiga ku soo dhaweynay marka wax badan baa intii runtii noo qabsoomay welina dadaalka uu socdaayo si wadna waxa la yiraahdaa burco laba daamood bay u kala qaybsan tahay oo bari iyo galbeed baa la yiraahdaa dhalinyaradu labada daamood isku dhacba ka yimaadeen inta badan haday ciyaari noqoto oo wax la leeyahay garoonkan xitaa weyn ee kubadda ku ciyaarto dhinac buu raacsan yahay arinta labada garoon burco waa laba daamood waxaan isaadaa waa dhaliil qolada galbeedku ay burco hoos ugu dhigayaan magaalo kasta Soomaaliland ku taala bari iyo galbeed iyo koonfur iyo waqooyi bay leedahay marka waxaan gaarka la bariga iyo galbeedka burco tilmaamay runtii aan uma garanay xisbiga kulmiyana runtii labadaba waxaan ku leenahay saameyn labada garoon imkaan ku sheegay qalabka gaarsiinay iyo koobabka iyo waxay ku kala yaalan midna Maxamed Cali buu ku yaalo garanaysa xaafada wuxuu yaala galbeedka magaalada kana bariga labadaba runtii taageero iyo shacbiyad baan ku leenahay arintan runtii waxa waa hoos u dhig burco loogu dhigo buray xaafad kasta Soomaaliland kamid magaalo kasta deegaamay kala leedahay in la ilaasho in burco wixii wax qabadkeeda si guud burco wax qabanay burco dhan ka dhaxeeyaan sumcadeeda iyo sharafteeda qof kasto reer burco iyo reer gobolka Togdheer runtii ay la wada leeyihiin marka arrinkaas ay imka qorshe ah gobolku isla qaatay aragtida siyaasadda waa lagu kala duwanaan karaa taas dibteeda ma laha laakiin xisbiyaduna waxay u samaysanaa aragtida in lagu kala raaco marka laakiin waxa muhiim ah oo meesha ku jirta in midnimada burco runtii ay meel tahay iyo horumarkeeda iyo waxqabadkooda dadka reer burco dhan ay ka dhaxayso xisbi ahaan anagu dacalada magaalada oo dhan waqooyigeeda iyo koonfurteeda iyo barigeeda iyo galbeedkeeda saameyn baan ku leenahay taageerayaal baan ku leenahay xafiisyaal nooga buran waanu ka shaqeynaa runtii active baan qana way abukor waxaan jecelahay barnaamijka inaynu iska soo gabagabayno si guud markaad u eegtid kulmiye taageerada oo gobolka ka haysa haday dhalinyaro noqoto iyo hadii dadweyne noqoto maxaad qiyaasi lahayd atatay ku xisbigan kulmiye runtii de marka Togdheer la yiraahdo doorashooyinkii isku xigay dalka qabsoomay oo dhan tii deegaanka tii baarlamaanka tii madaxweynaha mar walba wuxuu ahaa kaalinta koowaad imikana waxaan rajaynayaa inuu ka sii bato mooyaane inaan hoos uga sii dhacaynin kulmiye shacbiyad weyn iyo taageero weyn oo mugle ayuu xisbiga kulmiye ku leeyahay gobolkan Togdheer marka runtii inay noo ka korodho oo ka sii siyaada mooyaan hoos u dhac marna ma filayna aad baan ugu rajo weynahay xisbigu inuu mar kale ku guuleysan doono hogaaminta qaranka iyo talada dalka mar kale way abukor aad baan kugu mahad celinayaa waqtigaadna siisay telefishinka qaranka siisay gabagabadii barnaamijkan ku jirnay fariin ma jirtaa jeceshay inaad u dirtid guud ahaan dhalinyarada Soomaaliland gaar ahaan dhalinyarada gobolka Togdheer runtii fariinta aan u dir lahaa dhalinyarada Soomaaliland waxa kamid ah laba qodob baan ku soo ururin lahaa labada qodob waxay yihiin runtii haddaynu doonayna barwaaqo iyo badhaadhe iyo meel wanaagsan waxa aynu dalkeena iyo dadkeena iyo nafeena runtii ku gaarsiin karnaa waa aqoonta in priority la siiyo dadkeena iyo dhalinyarada inay ku dadaalaan in noqdaan dad wax bartay aqoonta in muhiimad badan siino qodobka labaad ee runtii aan aad u dhiirigelinayo waxa kamid ah dhalinyarada ama wax baratay ama dhalinyaradu waxay aad ku badan oo aan inta badan ku arkay inaanay muhiimad siin inay siyaasadda ka sheekeeyaan oo ay halka dusha ka hadlayaan laakiin aanay ka qayb galin oo aanay garoonka imanin maalmihii xisbiga la soo magacaabo waxa ugu badnayd niyo shirkad weyn oo u shaqeynaysay meel fiican oo joogtay maxal xisbiga iyo howlahan iyo is-eriyadkan ku falaysay marka dhalinyarada waxaan ku dhiirigelin lahaa talada qaranka in laga qayb galo in talada qaranka wadada loo marayana waa xisaabta qaranka sidii looga qayb gal laga shaqeeyo ay ku soo dhiiradaan dhalinyarada labada qodob baan aad u dhiirigelin lahaa aad iyo aad baad mahadsantiin daawadayaal barnaamijkii dhalinyarada ee telefishinka qaranka oo toddobaadkan idinkaga imanayay magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer oo sidaad arkaysay baan wareysi gaar ah kula yeelanaynay gudoomiyaha garabka dhalinyarada ee xisbiga talada dalka haya kulmiye Abukor Carab Ileeye inta ayaanu ku soo gabagabaynaynaa
muuqaalada waxaa qaadayay ciise shiine koodbur anigoo nuurudiin cabdilaahi colijoogna waan idinla socodsiinayay tan iyo intaynu isugu iman doono barnaamijkan mid lamida waxaan idinkaga sii tegaynaa amaana allah قادر